sidoo ku dhacay waa arkayseen hadday noqoto dhul la iska qaaday waxaygaa cadcad ee doollo iyo caynaba iyo mid waliba ay leedahay xeerka gaarka ah iyo xaqa gaarka ah wuxuu ku wareegaalaystay maanta oo meel aan la aqooninba totally cid allaale iyo cid garanaysaana aanay jirin horta yaree sugaad artay ma iga soo dhex gelin waxay carruurtani wahay ha gabaygu kaa xidhan waaya geel buu ka hadlay laakiin geelashii ugu badnaa reerka laga hayaa waa daarood waa hadday noqoto hagoogane waa hadday noqoto dhalma badane waa hadday noqoto tiraba 7 geel oo mid waliba gabayaadii ugu caansanaa ay ka gabiyeen ayaa laga hayaa waaya kitafiqi nin la yidhaahda baa iska haysan jiray nugaal iyo ninkan reerkiisa iyo dhulkiisa oo dhanba waa intii aanay somalilantan iyo dowladahan iyo soomaali iyo waxaan oo dhaniba soo bixin kitafiqi waa kan isagoo geeloodii iyo raggoodiiba intuu isdul dhigay haddana ku dul geeraaraya baleega wuxuu yidhi inaan laayo mooye si kale waanan ladahayni barkadkii lakaaciga badnaa lahankii beenowye caligari lafuuf baa ka hadhay laydh siduu dhacaya bahararsame waatuu ku lumay laqafkii dheeraaya ceel dhaabla labihii haddaan 6 ugu hoynayey caynaba haddaan 12 uga ladaab yeelay adhi dayr haddaan 2 habeen laasim uga yeelay dabaldaya dadku kale laf weyne haddaan laayay hagar aadan 6 iyo leg mooye haddaan guluf ku leexeeyo sangal laqana mooye haddaan luga ku soo duulo lufankiina hadhay haddaan laasana u daayo lafta muuse kama dhalan haddaan garanta kaa laabo haddaba leeg waa wixii uu xoolihiisa iyo geeliisa 24 hours sida uu doono iyo dhinaca uu doonaba ka dhigayay waad arkayseen inanku wuxuu ka caraarinayay calaacalkii adeeradii bal inaan soo qaato ka caraarinaya anuu ninka farta ay qoraya fahmayaa nin isaaqoo walaalkii ku yiraahda maxaa la yiraahdaa doqorkii ogaadeen dowlad laga qaad iyo adiguba darkii caynaba daris ku taala inta dhibaysaa waa intaa weeye laakiin gabayada awowgay waxaan ku socon karaa 2 saacadood iyo in ka badan baan kuwa awoogay ku socon karaa iyagoo dhammaantoodba libinka hadal midhana ee aan wax calaacala sidiinoo kale ahayn haddaba leeg aan wax yar ku tuso carab dheere nin la yidhaahdo oo ninkii lagu yidhi waa ismaaciil mire aan niman qabteen waxay ku yahan ismaaciilow weligaa ninkii free ma aragtay baa lagu yidhi dabeete wuxuu yidhi war kaa carab dheere bugaagtana waa ku qorantay youtube-kana waa ka soo helaysaan meel walbana way taalla kaa carab dheere haddaanan ahayn anigu qof kale oo kibrey oo aan idhaahdo waa kibray garamaayo markaa ninka qabtay carab dheer u ahaa waaya gabayadana xilligaa laga tiriyay carab dheer wuxuu ahaa ninka dhulbaanta intuu isdhex maro markuu neef xoolaa uu leeyahay isagu ka dhinto xeradooda intuu gala kala soo baxay cidna aanay kala hadal adeeg isagoo le neefkayga dhintay baan kan u qaata wahaye waa kibreerku ka gaadhay wuxuu yidhi carab dheere geygani markuu kugu gumaynayay ee gobolka sool iyo nugaal gudaha laascaano gibirka iyo baadiya markuu geniga qaadayay garaadiya cuqaal talisay odaya geed jooga garbaduub waatuu u xidhay gebi ahaantooda boqolaal intuu gowracuu saaray geedaha gardarada cadaanka ah intuu gabanadii laayay meydkooda waataa gubteen gacaladiinniiye dhereg kolkuu geela iyagu u go'o amase guudaanba bal waxaa eg dhereg kolkuu geela iyagu u go'o amase guudaanba magtiisoo gengiman weydinkii keenay golihii geel baa hal dhimatayba hal kale xaq ahaan looga soo qaaday heerka ay gaadhay baasho giiryaalanimadaa waqingad u lahaydene guyaal iyo guyaal tan iyo goor dheerba sidaan kugu gumayn jiray waad imaax garan eeg gunimadu maanta oo keliya maaha waa bahal aqaayibteen haddii dadku ay maanta free ss iyo free dhulbaanta leeyihiin qarniyo ka horna gabayaa lagu lahaa waye ataana dhaafo waya iska baddaa meel kale iyo dhinac kale oo loo dhaqaaqo iyaga dhexdoodu marka ay xaaladaha qiimaynayaan waxa weeyaan midbaka kale ayuu waxa weeye ku tuuraayo canaan iyo dagaal iyo kay ku noqoto cayba dhinacii loo rogaba waxa weeyaan ay ku noqotaa bal ilaahay baan idinku dhaariya waxaad ii soo sheegtaan reer Soomaaliyeed oo taariikhdeedu halkan gaadhay halkaa gabayna qalbiga kulay ka xanuunaya iska dhageystaan wuxuu yidhi iyagun baa isku qiraya waa markhaatiga isku furaan had iyo jeer gabayada barhkood maanan rabin gole kabaankooda wuxuunbaa gadaal iigu celinkaan guntoo xidhay sow guba inaan furo fa'aadima geyeysiinin ha yeeshee gadaafaa dhaciyo goldariyo hooge waxa gobolla qaarkood ka dhacay gobi ma yeesheene geesigay ku dhaadani jireen geyiga daaroodba geeridii haliyaygii intii giunya laga qaatay markii uu tolkii gaabsadee gilgilan waayey iyo doorkan guuxada ku tuban golihii buuhoodle markaasay garwaaqsadeen inay gacanta dhiibteenee gugii ina camila dilay caynabina guurtay gamba dumar sidii loogu xidhay guudkiibaa u dabane hadday godobta jeerkaa gutaan tani ma gaadheen raggii xaajigii gowracee galab ku iidaystay maantana waxay gogol dhigteen galajabkii sool taariikhda guunka ah haddaan dib u gadaal raaco inkastuu godkii aakhiro iyo geeri nagu dhaafay cali aadankii gubaba furay iyo gabaygii dheeraaday gadaashiina waatuu isagu soo ganaanaday ee yidhi gambaan xidhnahay iyo garnaagood gashantida sideedaan guur u sugayaa aniga iyo hablaha loo galmaan waa gudboonahay dad heerkaa gaadhay nolosha ma jiraan xaasha
geddi uu tilmaamuu talkii galabta joogaayo guryaha dumay guryaha dumay gabdhaha ooye iyo dumarkan geesaasay gabanada maatida la waday geedhka dhaxamaysan gabagabada sooltaal haddaan garasho qiimeeyo waxa gelinkan muuqdaa waa gabayadii dhuuxe gashaantida sideedii waxay guur u sugayeenba maantay arooskii galeen loo gurbaantumay reer dhan baa la leeyahay aroos bay galeen dabadle weliba wuxuu sii raaciyey guurtii baa la weydiisan jiray gabadh la doontaa reerkii gabadh la doontay buu kasoo qaaday guurtii baa la weydiisan jiray gabadh la doontaa gabaatigii caddaa loo qadimay waa cadda muuse gabaatigii caddaa loo qadimay iyo gunayntii gogashii islaan maxamed iyo geedkii reer boqorka oo boqorkii ma jeerteen inuu isaaqyaradka geeyo geediga u raray dee hadalku horta waa fool xumaanaya gabaygaasoo kale marka la qabsado laakiin xaqiiqadu waxa weeye makhraatiga aniga iyaga ii fura makhraatiga weli waa kuu wadaya in adeer aada waqti dheer buu ninku qaatay waxay ahayd waqtigaygii inaan aniguna sidai ahaydwalaal yara sug dee hadalka yara sug bilaa caleg anigu ma soo dhex gelgelayn markaad qaylinaysa su-aalaha waa la weydiin doonaa horta antayda dhamaysto markaa kadib baa wixii su-aalaha aan diyaar u ahay waayo gabayga awowyaday sidan oo kale u baanaaneen ma calaacalan horto dhegeyso waa kuwan wuxuu yidhi afrikaan iyo jine afrikaan iyo jinaha aradka buux dhaafshay ama dowladaha aarmiga leh ee la iska eegayo ingiriis kolay ku tahay ma jiro nin igu aadaaya waxaan ahay iridaha reer isaaq ooda ugu weyn asalna waxaan u leeyahay niman la asaraarayn adeeg halkan kaga arooraa waa ahlubeytkii adabalday wuxuu yidhi abidkii raggaan iska celinay ayran soo faafshay ee aan aabbihii u talin amase odaygiiba ee edeebsan waayaan rag waa layska urushaa adeeg wuxuu yidhi aniga iyo islaamnimo wuxuu yidhi anigoon islaamnimo ka tegin eedna ku hadlaynin libintayda awlaadda haddaan ooda ka caddeeyo oo sidii shiikh addimay aan sare u eedaamo adeeg oo sidii shiikh addimay aan sare u eedaamo ma waxbaan idiin dhimay haddaan nimaan ahay idiin sheego wuxuu yidhi adda sababa eerida xamar iyo awdal iyo saylac soomaali idilkeed waa laysku urushaaye afka maalintuu duulo ولا الله واتن كبدن بو قاتay inaan ku fadlan eega hadii aynu dee baasha waxa si kala hodhigayna loo yara sheeg su-aashu waxay ahayd warniyo wuxuu ku yidhi ninkaani dir baad marna noo sheegatay kugu gabihi marna wuxuu ku yidhi waxaad tiri duriyadii baan ahay martaqaana reer bini haashim halkeeba maad u haysaa uu yidhi gabay lamid ah oo looga jawaabo soo sax ma saas daweesh gabay lamid ah iga gal waxa weeye wala wada hadashay gabay uu ku haya su'aashaadi waana fahansanay gabayga aniga ugu tiriyay ee aan ku leeyahay tirmati ma haysaa gabay lamid ah oo yaashaa tiriyeen oo ay leeyihiin daaradmooda dhalan aan ku sheego kow waxaad ka soo bilowdaa wuxuu yidhi ma jeerteen waa niman nasakhan aan ahayn midhaha daarood war horta yara sug yara sug bilaa calayk horta yara sug aan ku dhameeya 10 gabay oo mid walba daarood reerkaasi maaha la leeyahay baan kuu sheegaya wala aqliyadaada gaagaaba aan adeer horta aan mid idin sheego wixii daarood isku tiriyeen meesha soo gelinayn ka saar wixii daarood isku tiriyeen ka bax anaga isnidi adiga uga gabayga adeerka ku halqabsane horta keebaa xun ninka leedo daahirow ilaan wax kasta haddaan su-aal ka dhigno waa waaliye keebaa xun gabayga adigu aad isku qiraysay aad leedahay anigu waxaasaan ahay iyo gabayga nin aad dagaal idinka dhexeeya uu waxa weeye isagu ku leeyahay waxaasaa tahay keebaa xun waxaan hayaa 10 gabay ka badan oo 10 kaba lagu cadaynayo xitaa kuwana waxa lagu yiraahdaa abtirsiimadin waxay gashaa eeyda reer xamar war reer xamarka eeyda horta yaris waxa kamid ah hadii aysan jirin dir ama isaaq gabay ay tiriyeen oo daarood la saarayaan urbaanta ama jeesan daaroodnimada way ana ku sheegaya dhageyso way waa kan
وايا كان يراك واكن وعلي صبتي كفتنا لو ذاك تلا سحي واي iyo sarci firgooyada laha kala si weeyaan ma simana sabool cayra iyo taajir saanyada ma simana gabadhii sirqowdiya gaari soocan ma simana sarkaal ciidan iyo sabi dhalaan ee afartaas intan ka deeyay sabab ma raacsi masaleeyay aadmigu waa isku seega saxiix khalada cidda uu ninkaasi la helay ka sikada ayuu ku soo gabagabeynaya sabtii kibirtay baan seef la dhacaya waa ognahay Soomaali sab iyo Soomaala Soomaali loo kala saaray ciidan sabta lagu sheegay ilaha ma tiidin maxaa leedahay dad sirgooye la saxan waa yaa wali gabayga si jawaab si fiican u celi anigu waxaan quraan baa gabagabadii daahir baa iska faasinaya quraan baa horta waxaan ha gubani daahir baa iska faasinaya daahir anigu waxaan idhi awowgay wuxuu yidhi taariikhda duuga haddaan dib uga faalloodo diiwaanka waxaa kugu taalla waa dir baanay maantana duriyad baadaan nagula doodeen hadba inaad dul noo sheegataan waa dayisnimo adoo aabaha yidi baa dooni ruux kale gabay nooc midda kale gabayga maya eg gabay noocaas kale ma haysaa daarood ma wada qalan ninkan waqtigiisii u qaatay doodu xiisa yeelato